see ku helaa nin aan naag ila guursan. Waxaa la sheegay inay nin oday ah u timid qof dumar ah, waxayna u sheegtay inay tahay qof masayr badan ayna adag tahay in ay u dulqaadato in naag kale lala guursado. Kolkaas ayaa waxay odaygii ka codsatay sida lagu heli karo nin aan naag kale la guursanayn. Runtii odayga su'aashu way ku adkayd, balse cabbaar kadib ayuu helay talo, wuxuuna ku yidhi gabadhii, haa, waad la heli karaa nin aan naag kale kula guursanayn. Ninka aan naag kale kula guursanaynin waa mas-uul muqayil ah. Waa ninka garaad fiican leh oo misana jaadka cuna, kaasi way ku adag tahay in uu naag kale guursado, sababta oo ah ninka qaadka cuna waxba uma dhigmayaan uu naag kale ku hawaysto oo wuxuu qabaa 2 naag, mid waa adiga midna waa qaadka. Sideedaba way adag tahay in la helo muqayil fekera oo naago badan isla qaba. Gabadhii way u mahad celisay wayna qaadatay taladaasi uu ugula taliyey odayga. Haddaba saaxiib, sidee u aragtaa talada uu odaygu siiyey gabadhaasi? Bal fikirkaaga ka dhiibo arrintaasi oo xaga hoose ku dhaaf afkaartaada. Waxaad tahay qof muhiim noo ah. Nagu soo biir barta guduudan, guji suulka kor u taagan, riix si muuqaalku dadka ugaadho. Mahadsanid, nabaday intaynu muuqaalka dambe ku kulmi.